Asalaamu calaykum kusoo dhawaada channelka maanta waxaan idin hayaa cilaanka la saaranayo oo cadaanka ah haddii madoobeysada ama cilaanka caadiga dadka qaar allergy ku yihiin soo anaka camal allergy ku nahay soo ma isku dhibnaba inaan saarno soo marka kuwaan aan soo gatay kuwaan waxaa waaye tattoo camal oo jirka lagu dhijinayo nashqado badanaa la socdo oo kala duwan marka caruurta waa u saari kartaa adiga waa saari kartaa so wax badan oo kala duwana bacda ku jiro marka hadeer waa idin kala tusooya waa kuwaana so waxaan sameynaa hadda waa ku cabiraa markii aan ku cabiro and then waa jaraysaa markii aad jartid waa isticmaaleysaa marka insha allah because you know haddii aad tahay allergy cilaanka maaragtay dad badan allergy ku yihiin madoobeysada horta dad badan allergy ku yihiin so ma loo baahna maahan oo inaa la isku dhibo welina quruxda waa la rabaa so maasha allah hadda beri ciid waayo ciida u dabaaldegaynaa ciida isku diyaarinaynaa laakiin sometimes markaan leenahay xafladaha iyo haddii aad leedahay aroos ama haddii aad rabtid horta ad inaa isqurxsatid adi naftaada haddaa rabtid qurux yaroo wax yaroo dhac camal haddaa rabtid inaa ka siisatid xitaa ma diideysa no why no so marka waxaa waaye warqadan waxaa waaye inaa lagu jaro waayo maqas intii kugu filan because aad u weyn tahay intii adig kugu filan aa ka jaranaysaa marka gacanaha leena ma loo isticmaalo lugaha lagu dhajisan karaa meelaha qaar xabadka gacanta intii adiga aad rabtid intiiba horta aa cilaan saaran laheed oo dhan waa u jaranaysaa markaasna waa ku aadinaysaa and then biyaa u isticmaale kabacdina nashqad qurux badan aa kusoo bixi doonta insha allah waana arki doontiin hadeer waa kuwaana waxaan fiirinaya inta la eg gacantooda aan fiirinayay gabdhaha marka insha allah muhiim waxaa ah horta markii aad jartid oo biyaha loo isticmaalaa biyo inaad soo diyaarsatid biyahana inayna kaaga kor daadanin haddii ay kaaga kor daataan then tattooga wuxuu ku dhagayaa bacda because bacaa ku dhigan bacda in laga fujiyo waaye haddii aa ilowdid bacda inaa ka fujisid tattooga bacduu ku dhagaa so hadhow adi jirkaaga ma ku dhagaayo ya marka iska ilaaliya insha allah waxaa waaye nashqado badan oo kala duwan waaye marka kuwii aa ka heshidaa marka saaranaysaa insha allah so hadeer waa kana waa fiirinoyaa dhinacee u saaraa sidee u sameeyaa qaabkee iyada maxay jeceshahay ilmaha waxay rabaana loo sameeyaa mahano so adiga le ma ahan adiga wax kula qurxoon ayakana wax la qurxoon insha allah waxyaabo badan ku jiro oo aad u qurux badan marka way kala dooran karaan haddii ay kala doortaan iyagana waxay habi ku yihiin waaye marka maasha allah so hadda waa kana gacantii ku tijaabinoyaa and then horey gadaal so waxa sidaan kuu sheegaba bac yaraa ku dhigan waana ku tusi doonaa bacdaas yar ha iska iloobin inaa ka fujisid insha allah marka maasha allah so waa kana subscribe-ka ha iloobin maasha allah beelka taabo gambaleelka yarka ha kuu furnaado markasta oon soo geliyo video sidaan oo kale insha allah si kuugu soo dhaco so waa kana biyo aad u badan maba loo baahno wax yar farta la geline wax yariisi waa kor saareysaa waa ku haynaysaa cabaar yar waa ku haynaysaa insha allah markaasna waxaa arkaysaa nashqadii oo diyaarsan marka waatana bacdi waatana first bacdi ilooba kow waxaa idinkugu soo celcelinaya sidaas waaye bacdaa iska iloobin marka waa kana waa la saarayaa marka maasha allah maxay ahayd waa kana cilaanka marka biyaha la saaraa waa lagu waxariis wax aad u badan maba ahaba wallaahi maasha allah aaday u qurux badnaanaysaana markaa tartiib u samaysid haddii aa ka badisid maaragtay then waxay noqonaysaa too much biyo marka waxaa laga yaabaa sabibax xunu noqonaa markaasna ma qabanaya si fiican because gacantii hataa hoosay ka qoye so waxaa muhiim ah inaad tartiib inta warqada loogu talagala leh inaad saartid waxyarihiisaas markaa ugu celcelisid farahaaga then waa ka qaadaysaa markaa ka qaadid haddii uu waxyar kaa nunuuxsado biyaha xitaa ku sixi kartaa fartaada kula sixi kartaa after ka qaadid nashqadii waa taasaa waa soo baxday so meelaha haddii is leeda inta inaa ku dhajiyo waayo so farta le biyo geline farta le adan ku toosinaysaa insha allah waa ogahay haddii aa isoo weydiinaysiin meesha kasoo gaday linkaa soo dhigi doonaa hoos meesha ani kasoo gatay insha allah laakiin meelo badan waa laga helaa wadankaa joogtadii ku xiran tahay insha allah marka
you know cilaanka haddii aad jeceshahay inaad saaratid laakiin aadan u haynin haddii allergic ku tahay ama haddii aadan waqti badan xitaa u haynin oo markaasna deg deg ugu baahan tahay nashqad gacnaha ku quruxsatid wallahi tan this is very good waa wax aad u wanaagsan so waa kana maasha allah haye gacanta kale hadda bilaabayna haddana and then same processka isku mid leh waaye isla sidii lela sameynaa marka insha allah marka hadda ilmaha qaar allergia ku yihiin mahana waxyaabaha qaar so ani waxaan la kulmay inaa caruurta mid kamid ee allergi ku ahayd ukunta caanaha you know cuntooyinka qaar so waxaan la kulanay dhakhtaro kala duwan you know waxaa jirkeeda dhan kasoo baxay xasaasiye wax badan you know cuncuni jira jirka kareemo badan oo kala duwan so haddii u baahan tihiin eczema al dhahaa eczema ama waxaa waaye jirka dhan inuu noqonayo qaleel meelaha qaar ilmaha way qabaan badanaa xusulada jilbaha hoostooda you know dhagaha gadaashooda even sometimes caanka korkiisa haddii markano oo ilmo aada u yaryar oo weli cunto bilaabin haddii haysatid oo sidaas wada noqdo jirkooda dhan iswada bedelay waxaa laga yaabaa inay u keenayso cuntada adiga cunaysid haddii baby nasi sidoo kale let's say haddii baby nasi sidoo kale cunuga jirkiisa ma fiicnaanayo wax kasta u marisid ma anfacayo so waxaa muhiim ah marka inaa isdhahdid ama you know aa ka fikirtid amay tahay maybe waxa ani cunayo ama allergic ku yahay cunuga so marka insha allah inaa iska fiirisid waaye so kana hadda cilaankii waa dhamaystirnay labada gacnood so next gacnaha kala aadaynaa gabadha kale marka waa kana sidaanu kusoo baxay maasha allah comment iisoo reeba nagu soo biira share noo sameeya insha allah waxay noqonaysaa markastoo channelkeena wax soo galo inay dad badan gaarto oo naga caawinaya marka insha allah nagu caawiya walaalayaal aada u mahadsantihiin adinkoo mahadsan hadda waa kana qeybtii labaada aadnay soo nashqadaanay dooratay marka nashqadaana u isticmaalayna hadduu ilaaha yiraa haddii caruurta gacmooda yarar yihiin you know sidaan oo kale waxaa laga yaabaa sometimes inay nashqadaha ay doortaan oo waxyar ka weynaado so waxyariis inaa fiirisid waayo maxaa gacantooda la eg maxay sidee u isticmaali kartaa marka waa sidaas hadda waa kana hadda sidaan kusoo baxay kii kalena hadda waa kasaa dhinaca waxyara iga laabmay biyaha le gacanta kusoo qaadaysaa markaasna waa fidinaysaa insha allah markaasna wuu ku fidsami doonaa ku toosi doonaa and then hadda next waxay gacanta kale haddan u raadinaynaa ayadaa hadda la hadlayay waxaan dhahay kee rabtaa sidee rabtaa marka insha allah wax badanna ma loo baahna ciyaal markay yarar yihiin nashqad aada u badan oo tiro badan ma loo baahno wax yaroo indhaha lagu quruxsado le insha allah marka sidaa idinkugu sheegaba wax badanaa la socdo haddii adiga xitaa saaranaysid mataqaanaa lugaha gacmaha garbaha meel kasto waa sizekaaga regular sizeka waaye so aniga hadda u doodoortay kuwa yaryarka aan u doodoortay laakiin regular sizeka waaye marka cilaankan waxaa waaye maha tattoo waaye like tattooga hindida camal saarato waaye waa laga yaabaa dukaamanka mararka qaar inaad ka heshid mararka qaar laakiin badanaa onlineka waxba lagama waayayo marka wadankaad joogtid aa fiirinaysaa Amazon iyo eBay meelahaas markana online shopping markaasaa arkaysaa insha allah haddii aa u baahan tahay specifically waa ila soo xiriiri kartaa insha allah anaa kaa caawinayo haddii kalena waa kana waa very easy google kale ku qoraysaa isqurxinta cilaan saarida you know waxyaabahaas waxay kamid tahay self careka so muhiim waxaa ii ah aniga inaa caruurta baro siday ayaga isku keergaray lahaayeen you know markasta oo care aa siinaysid naftaada ilaahay dartiis ilaahayna ajir wuu kaa siinayaa so adiga xitaa markasta oo self care aa samaysanaysid haddii aa wejiga horuud marsatid haddaa cidiyaha quruxsatid whatever you know ilaahay self carekaaga wuxuu kaa siinaa cibaada haddii aa u niyeysatid ilahay wuxuu kaa siinaa ajir badan marka u niyeysa markasta wax samaysanaysid naftaada inaa niyad fiican la imaatid insha allah so hadda waa kana gacantiyaa u sameynaya farahiyaa u sameynaya and then insha allah waa u dhamaystiraya hadduu ilaaha yiraa and then waxaan rajeynaa inaa idinka ka faa'iidaystiin videogan haddii aa su-aalo qabtiin hoos iigu soo qora hana iga iloobanina comment and subscribe and share aada iyo aada u mahadsantihiin marka
waa mahadsantihiin walaalayaal. hadda waa kanaa farihii ugu dambeeya hadda sameynaya. marka waxaan rajeynaa walaalayaal inaad ka faa'iidaysateen. aad iyo aada u mahadsantihiin. maasha allah waa kuwaana jazaak allah khayr. ilaa iyo xaggan haddaad aad isoo daawatay oo isoo dhageysatay, horta aad iyo aada kaaga mahadinaya. ilaahay khayr ha ku siiyo. waxaan rajeynaa inaad subscribe-ka naga iloobin hadduu ilaah yiraa. waxaan rajeynaa inay ku anfacday videogan, fikrad cusub inaan kusoo siiyey. haddii aad rabtid examada iyo xanuunka jirka ilmaha yararka markay allergic ku yihiin cuntadana, insha allah waa soo gelin doonaa mar kale anigoo si fiican uga hadlaayo hadduu ilaah yiraa, iyo sida anaka qaabka aan isku caawinay. marka insha allah aad iyo aada u mahadsantihiin. ciid wanaagsan meel walbo adduunka ka joogtiin. ramadaankiisa khayr ilaahay nagu gaarsiiyo. aad iyo aada u mahadsantihiin walaalayaal. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.